halkan waa deegaanka Helaari oo ka mid ka deegaanada maanta howlgallada ay ka dhaceen oo ciidamada xoogga ka dulqaadeen shacabka dhibaatadii cadowga ay halkan ka geysan jireen. ciidamada ayaa deegaankan ku burburiyay saldhigyo nabadiidka ay ku lahaayeen halkan, waxaana nabadiidka loogu geystay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh, iyadoona ciidamada ay la wareegeen taliskii halkan ku yeelay. saraakiisha hogaaminaysay howlgalladan ayaa shacabka kula hadlay deegaanadii maanta howlgallada ay ka dhaceen, gaar ahaan deegaanada Helaari, Doobley iyo deegaanka Horeyna oo ka mid ka deegaanada hoos yimaada magaaladan Baardhede, iyaguna u sheegay inay ku noolaan doonaan nolol fiican ayna ka dulqaadayaan dhibaatada cadowga. annagu waxaan idin xoog dalka Soomaaliyeed waxaan la dagaalamaynaa kooxaha nabadiidka shaqo ma garanaysaan ku beeraha qodanaysan idin inaad qodataan oo inaad reeriin nabad u joogtaan idin diiray oo adinkiina caawiyo odayaashina idin diiray kuwaas la dagaalamaynaa si idinkuna u heshaan xorriyad heshaan baahidina aad uga hadashaan dawladda aad u sheegtaan waxa la u baahan tihiin ayaduna idin soo gaarsiis sidaasaan idinku wasaadkanaga annagu waxa weeyaan waajibaadkanaga dhigaysa inta taas oo qayb ka yahay haddii ilaahay hadda war waadiljeena waa idin nimid deeqa fiican oo idin soo gaarsiin doona haddii ilaahay laakiin waa inaad sheekada dhadan adow waa kan ana laga qabto waana la dilaya ma garateen haddaan taas la yeelino aniga idinkaan isgarabsan annagu waxaana idin xoog dalka Soomaaliyeed calankaasaan u dhaaranay dadka shacabkana u dagaalanaan jecelnahay ayaguna waxa weeye si fiican ay ku noolaadaan haddii marka idinka aad nasaacidin doorkiina aad ka qaadan dawladnimada wanaagna lama helay idinkuna waxaad u baahan tihiin heli maysaan caalamka markaa cadow inaad soo sheegtaan annaguna waxa loo baahan tahay in soo gaarsiin haddii ilaahay ya haddii uu bahal mahad gashan يبقى المعاتري هذه بحال بارك كشان سو كما قدينيا كشانين ده شاغه ديسان انك قدين كبين حرد ما abaandulaha ururka 49aad ee magaaladan Baardhede xidigle Maxamed Wali Cabdullaahi Yuusuf ayaa warbaahinta la wadaagay khasaaraha cadowga loo geystay inta ay howlgalladan socdeen. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxaan aan ka howlgalnay deegaana iyo al-shabaab ku dhuumalaysan jireen deegaankaas oo hadda meeshaan ka hadlayno meel la yiraahdo Helaari u jirta baarar kilomitir 55 kilomitir kaga beegan dhinaca waqooyi Helaari iyo Buulo Culuwaan ka howlgalnay oo meel al-shabaab ku dhuumalaysan jireen bay ahayd kana dhibaateyn jireen ummadda Soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinka deegaankan baarar ku xiran meelaha ay ka meeleeyaan bay ahayd howlkan wuxuu bilowday abaar xalas ilaa 2 saac habeenimo hadda oo xilliga arkaysaan aan wili wuu soconayaa hub ayaan ka soo qabanay sidoo kale ilaa 5 qori gaaraya saadkoodii macal raashinkii waxaasna gabarida ayaan ku wadnaa hadda. Dhamme Cali Maxamed Xasan taliyaha ciidamada ururka 49aad ee magaaladan Baardhede ayaa dhankiisa sheegay in cadowga lagu wiiqay awoodooda howlgalladii maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay deegaanada ay shacabka ku dhibaateen jireen cadowga Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waxa ilaahay ma hadiisa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay si direction ay ugu howlgalayaan goob kasta iyo meel kasta oo jiiyahan gobolada Soomaaliya guud si guud loo howlgalayo shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaynaa inay dawladooda la shaqeeyaan waxa xoga ah oo cadowga ah inay la wadaagaan ilaahay baa ma hadis kale cadowga marka laga reebo dhagarta iyo qaraxyada ay sameeyaan markii laga reebo uma barbar dhigi karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana meel kasto ay joogaan waa laga saarayaa geed hostis saad ogtihiin baad anaga ciidamadana lug bay ahaayeen saaki tagay habeenimo tagay waxay ahaayeen ciidan lug ah waxay wateen dameere iyo geedid lug ah ay wateen geed kasto harsadaan waa ka saari doonaa waxaan ku baacsan doonaa lug. Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardhede ee gobolka Gedo.